hambalyo haddaan shalay ku yidhi goobta lagu qaban doono shirweynaha beesha Garikombe waa laga soo fikiraya maanta ayaan kuu hayaa waanad goobaad ku farxi doonto waxaan kuu sheegay goobta lagu qaban doono waxa weeye waa caasimadda dalka Kenya Nairobi qaasatan Hotel Medina Mall waxaan filayaa inaad markaad maqashay aad ugu faraxday waa Hotel Medina Mall oo sida loo qurxiyay ee loo xardhay markaad aragto ay dhaayahaagu aad iyo aad ula dhici doona waxaana meesha kugu diyaar dhalinyaro u furfuran habka soo dhaweynta kuguna soo dhaweyn doona gacmo furan qalbi saafiya iyo waliba iyagoo dhoolo cadeynaya talo dhalinyartaasina maxay leeyihiin bal hadda ila dhageyso هيا بل هذا يمكن أسلا دقيسانو سو dhaweynta dhalinyarada iyo waxay kula diyaar yihiin magacaygu waa Axmed Iyad Kosaar waxaan soo dhaweynayaa shirka beesha Garikombe ee ka dhacaya dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi khaasatan Islii waa soo dhaweynayaa dhalinyarada waxaan leeyahay soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waxa waaye Mawlid Cabdiraxmaan Cumar oo joogo magaalada Nairobi ee kamid ah dhalinyarta Garikombe ee ku dhaqan wadanka Kenya waxaan leeyahay waan soo dhaweynayaa shirweynaha ee Garikombe ka dhici doona maalinta Axad ee taariikh 5 December 2021 ee magaalada Nairobi khaasatan Medina Mall ka dhici doona marka welcome all. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنيقو مصلحة وجوغا مقالة نيروبي وحان سو دوينا يا dhalinyarta beesha Garikombe shirkaas oo ka dhici doona magaalada Nairobi xaafadda Islii waxaan u soo dhaweynayaa gacmo furan waxaan leeyahay soo dhawaada dhalinyaro السلام عليكم magacaygu waa Ayaan Cilmi Cabdi oo ku sugan dalka Kenya gaar ahaan Nairobi waxaan aad ugu faraxsanahay kulanka aan wada qabsanayna beesha Garikombe waa mid aad iyo aad u farxad geliyay inaan isku imaano السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تلوينها فاميلي Garikombe magacaygu waa Maxamed Aadan Cali ku magac dheer Qoslaaye waxaan aad u soo dhaweynayaa anigoo dalka Kenya jooga gaar ahaan magaalada Nairobi beelweynta Garikombe oo shir ku qabsan doonto maalinka Axadda hadduu alla idmo insha Allah biidnillaahi alkariim aad baan u soo dhaweynayaa aad baanan ugu hambaliyeynayaa soo dhawaada walaalayaal gacmo furan ku soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Tawfiiq Dhubow Maxamed oo jooga Kenya gaar ahaan Nairobi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno dhalinyarada beesha Garikombe shirweynaha ka dhici doono Nairobi maalinka Axadda marka waxaan leenahay hambalyo soo dhawaada insha Allah waxa kugu hambalyeynaya oo mar labaad iyo mar saddexaad baan ku leeyahay hambalyo waxaan rajeynayaa in dhammaantiin rag iyo dumar baad ka soo qayb gali doontaan shirweynahaas